kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah farmaajo oo khudbadiisa ku sheegay sida uu ku yimid isbedel doonka socda Sheekh Aadan Madoobe oo fariin u diray xildhibaanada ka hor doorashada madaxweynaha iyo mas'uuliyiin ka socota dowladda Mareykanka iyo madaxda Soomaaliland oo ka wada hadleen saldhig uu Mareykanku ka furto deegaanada Soomaaliland qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawada hadana ku cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada waa wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkan si share gareey laakiin waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweyne farmaajo ayaa khudbadiisa ku sheegay sida uu ku yimid isbedel doonka socda madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa khudbad uu ka horjeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kaga hadlay barnaamijkiisa siyaasadeed hadii mar kale dib loo doorto Farmaajo ayaa si aad ah uga hadlay waxqabadka dowladiisa ee 5 sano ee la soo dhaafay wuxuuna diiradda saaray ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo dagaalka al-shabaab musharax madaxweyne Farmaajo ayaa mar kale ka codsaday xildhibaanada labada aqal inay codadkooda siiyaan si uu sii hogaamiyo villa Soomaaliya wuxuuna ku faanay inuu la dagaalamay musuqmaasuqa isla markaasna uu xoojiyay dowlad wanaagga Soomaaliya sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha wuxuuna sheegay in xasilooni siyaasadeed iyo kobac dhaqaale uu abuuray oo sidoo hadalku dhigay waxa kale oo intaasi uu ku daray inuu xakameeyo hubka ay haysato dowladda Soomaaliya si uusan u gelin gacan kale dagaalka al-shabaab ayuu sidoo kale sheegay inuu xoog saaray wuxuuna tilmaamay in gacanta dowladda soo galeen deegaano hor leh sida Sabiib Caanoole Janaale iyo Marka dhinaca kale wuxuu sharaxaad ka bixiyay ereyga halku dhiga u ah ee isbedel doonka socda wuxuuna xusay in isbedelkaasi uu ka soo bilowdo meesha hadda la joogo ee doorashada isbedelka waxa uu ku yimid wax la yiraahdo isbedel doonka fadhiidka ah oo taariikhdeena ku suntan sidaad ogtihiin isbedel doonka socda waxa uu ka bilowdaa waqtiyadan hadda aan joogno doorashada ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya hadii mar kale dib loo doorto wuxuu ballan qaaday inuu dalka gaarsiin doono doorasho qof iyo cod wuxuuna shaaciyay hadii qof kale la doorto inay taasi adkaan doonto annaga ugu dhow doorasho qof iyo cod oo qof cusub hadii uu yimaado ma gaari karo ayuuna warkiisa ku sii daray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba waxa ay shalugaya doorashada maalinta Axadda ka qabsoomaysa Muqdisho iyo waliba shakhsiga hanan doono codadka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya geesta kalena Sheekh Aadan Madoobe waxa uu fariin u diray xildhibaanada ka hor doorashada madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo soo xirayay kulankii khudbad jeedinta musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa la dardaarmay xildhibaanada ugu horeyntii gudoomiye Aadan ayaa u mahadceliyay xildhibaanada labada aqal iyo guddiga isku dhafka ah ee doorashada madaxweynaha waxa uu sheegay in lagu gali doono diyaar garowga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhacaysa maalinta Axadda oo ku beegan 15 bisha May gudoomiyaha ayaa ugu baaqay xildhibaanada inay ilaaliyaan waqtiga ballanta ee la iskugu imaanayo doorashada madaxweynaha xilli maalmihii dambe ay muuqanaysay inay si weyn uga dib dhacayeen hadal jeedinta doorashada sidoo kale waxa uu ku booriyay u dulqaataan waqtiga yar ee ka haray culayska heysata kaas oo ku eg sida lagu wado maalinta Axadda oo ay dhacayso doorashada madaxweynaha hadalka gudoomiyaha ayaana imaanaya iyadoo lagu guda jiro u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha isla markaasna ay magaalada Muqdisho ka socdaan ololaha musharaxiinta iyo kala jiidashada xildhibaanada labada aqal وهاجي داود يالي مكان waxaan eegaynaa mas'uuliyiin ka socota dowladda Mareykanka iyo madaxda Soomaaliland ayaa ka wada hadleen saldhig uu Mareykanku ka helo deegaanada Soomaaliland magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland waxa gaaray wafdi ka socday dowladda Mareykanka kuwaas oo ka degay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaas halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafdigan ayaa ka soo kicay timeen dhanka dalka Djibouti waxayna iskugu jireen diblomaasiyiin iyo saraakiil ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Mareykanka xubnahan oo horkacaya taliyaha ciidanka Mareykanka ee saldhigoodu yahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaana kulamo la qaateen madaxda ugu sareysa Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi kadib kulamadaas iyo booqashada wafdiga ayaa war-saxaafadeed ay Soomaaliland soo saartay waxay kaga hadleen arrinkan waxayna ku yiraahdeen madaxweyne Muuse Bixi Cabdi ayaa ku soo dhaweeyay Soomaaliland taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika Africom sargaalkan oo ah kan ugu sareeya ciidamada Mareykanka ee soo booqday Soomaaliland ilaa 1990 waxa ku weelinaya booqashadiisa safiirka Mareykanka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Mareykanka wuxuuna madaxweynuhu ugu mahadceliyay wafdiga safarka ay ku yimaadeen Soomaaliland wuxuuna u sheegay inay soo dhaweynayaan iskaashiga dhinacyada amniga
iyo militariga ee labada dal ee Somaliland iyo Mareykanka waa sida lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Sidoo kale isla warkan ayaa lagu yiri intii uu socday kulanka labada dhinac ku dhaxmaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah Cigaal ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu xusay in booqashada generaalkan ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca adkeynta iskaashiga ka dhexeeya Somaliland iyo Mareykanka, waxayna ka turjumaysaa in bog cusub oo u furmay xiriirka labada dhinac. Ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland waxa ay qayb lixaad leh ka qaataan ilaalinta marbiyoodka muhiimka ah ee badda cas, taas oo ay faa'iido weyn ku qabaan dhammaan dalalka oo dhan. Iskaashi iyo wada shaqeyn intan ka xoogan kana weyn oo dhexmarta Somaliland iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom waxa uu kor u qaadi karaa baa la yiri nabadgelyada iyo ammaanka biyaha badda, waxa uuna caawinayaa ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha bariga Afrika. sidoo kale war-saxaafadeedkan oo khuseeyay faahfaahinta wafdigan iyo ujeed ku yimaadeen ayaa lagu yiri waxaa dhankooda ay si wada jira u soo dhaweeyeen hadalka madaxweynaha generaalka iyo safiirka Mareykanka, iyagoona sheegeen inay dhinacooda diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada amniga iyo militariga ee labada dhinac. Wafdigan intii ay booqasho ku joogeen Hargeysa ayaa sidoo kale waxa ay booqasho ku tageen dekada Berbera iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaaladaasi Berbera, kuwaas oo labadoodaba dhowaan dhismo ahaan la balaariyay lana casriyay si kor loogu qaado adeega dhaqaalaha, arrimaha bini'aadanimada iyo baahiyaha amniga ee Somaliland. Dalalka ay saaxiibka yihiin iyo gobolada intaba booqashada taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom waxa ay daba socotaa booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku tagay baa la yiri Mareykanka bishii Maaj 2022 iyo sahankii taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ay ku yimaadeen Berbera bishii Agoosto ee sanadkii hore. Kulankan ayaana waxaa madaxweynaha ku weelinayay wasiirada kala wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Somaliland Dr. Ciise Keed Maxamuud, wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdiqani Maxamuud Cataaya Fariid iyo taliyaasha ciidamada militariga iyo booliska sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo sareeya gaas Maxamed Aadan Zaqadi. Si kastaba wararka uu soo weelaya dalka TV ee ku aadan kulankaasi iyo ujeedka wafdigan ayaa tilmaamaya in mas'uuliyiintan ay u yimaadeen arrimo la xiriira sidii saldhig weyn uu Mareykanka uga heli lahaa deegaanada Somaliland, halkaas oo uu doonayo inuu fariisiin ka sameysto isla markaasna saldhigiisa dalka Djibouti oo u soo raro dhulka Soomaaliya. waxaana qorshayaasha ugu weyn la sheegayaa inay qayb ka tahay sidii uu saldhigaasi uga hirgeli lahaa magaalada Berbera, gaar ahaan agagaarka dekada Berbera oo noqotay mid kamid ah dekadaha ugu casrisan Geeska Afrika. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media, fadlan daawada aad nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada oo helo wararkii warbixinada 24 saac aan u baahino aragtidiina halka hoos noogu reebo muuqaalkana si share gareeya laagtiinana waa inoo dhiirigelin waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.